wixii shalay oo adiga Shariif Sheekh Axmed aad ugu horeey oo Xasan Cali Khayr ugu horeey oo Cabdiraxmaan Shakuur saddexdooda ay ugu horeeyaan ay ku sigteen ku dhiman gaareen Shariifna wuxuu ku dhiman rabay hotelka la yiraahdo Maa'ida sagaal maalmood ka bacdi xasarad waa dindab baash moogta xiisu markuu baash ay kululeed hadii dhabka tamaantay samee lahaayeen banaanbaxaas ibadba banaanbax fiican ma ahayn banaanbax fawdo ahay ilaahiga subxaanahu wa ta'aala iyo dawladda joojidana kuma hadle banaanbax ay dad qaas oo ay kursi raadaysa ay rabaan inay maaragtay abaabulaan wax micna anaga nooguma fadhido anaga dhalinyarna amnigaas aan quseeyo sagaal maalmood ka bacdi ummadda Soomaaliyeed afayuunkoodii ana ah cid u soo baxaydaana ma jirto haddaan kuleeyaba sababtoo ah waxa waayaan qof bariis $5 raadsanaya ayaga baasaboor ajnabi ah haystaan waliba xalan uu jira baasaboorkooda ilmahooda meesha ugu sokayda London iyo Ingiriiska iyo baalki waxay u jiraan meesha ugu sokayta Kenya u jiraan dan waxay igu sugan tahay inuu bandaaraad baaqdo inay rabsho baaqato inuu buuq iyo fawdo baaqdo waayo mootaan ku shaqaystaa saaka waa soo baxay si nabada in ka badan 6 degmo aan soo maray iyo ku dhawaad 15 isgoys wax buuq iyo problem iyo rabsho ka taagan maana soo arag laakiin haddii maanta bandaaraad uu jiri lahay taas bedelkeedu waxay noqon lahayd inaan gurigayga iska joogo oo aan naftayda iyo mootadeeda u cabsado banaanbixi faa'iido weyn ku qabnaa naga baaqdo waxa ku qabnaa si nidaam ah waddanku u shaqaysanayna si nidaam ah u soconaa dhibaato naga maqnay ilaahay anaga baajal